aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa howlaha iyo mas-uuliyadda culusood sii wadeen oo hayseen waan ognahay inay sidii runtii ay ahayd uga soo baxdeen dhammaan mas-uul kastaa meeshii uu ka lahaa ama uga aadanaa aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. sidoo kale waxaan runtii aad iyo aad reer Hobyo uga mahadcelinaynaa inay soo dhoweeyeen dhammaan arrimihii la xiriiray howlgallada iyo guud ahaanba gobolka Mudug kaalintoodii ka soo baxeen aad baan uga mahadcelinaynaa. waxaan mar walba iyo mar kasta bogaadinaynaa howlgallada cadowga khawaarijta looga sifeynayo dalka guud ahaan gaar ahaan howlgallada ka socda Galmudug oo runtii aan diyaargarow fiican meel walba iyo dhinac walba uu maanta ka socdo howlihii ciidamaduna aan filayo inay ayagoo horeba u diyaarsanaa hore u bilowday haddana inay gacanta la saari doono insha allahu tacaala khawaarijta meelaha qaarna dagaaladii waaba lagu guuleystay oo meelo badan waa lagu guuleystay oo runtii dee Galmudug bariga Galmudug guulo waaweyn laga gaaray oo wakti hore soo bilowday oo deegaano aad muhiim u ah cadowga laga qabtay lagu jabiyey maantay sidoo kale horumar weyn laga sameeyey shalay waxaad la socotaan in deegaano oo la qabtay oo lagu qabtay khawaarijta kuwoodii weliba habowgooda iyo xumaantooda kuwii hogaaminayay kuwa ka mid a lagu qabtay deegaano badanna laga qabtay shalay maantana aan ognahay in horumar fiican laga sameeyey oo deegaamo waaweyn oo kale hadda wararka la soo gaaray ay sheegayaan degmada Galcad oo kale oo runtii degmo weyn oo istaraatiiji ah in maanta lagala wareegay cadowga khawaarijta hore shalay Baraaksha Caamir iyo Cego iyo dhul badan bay ahayd hore waxaa kasii horeysay Masagawa oo iyada dee 2 asbuuc ka badan ba la joogay aanan filayno intaa iyo kasii badan in laga soo gaaro si degdeg insha Allah halkan biidin Ilaahi tacaala saacadaha soo socda ciidamadu tallaabooyin waaweyn oo dadka reer Galmudug guud ahaan iyo guud ahaan Soomaaliya farxad geliya laga gaari doona ama laga qaadi doona waxaan rabnaa in aan mas-uul kasta iyo qof kasta oo reer Galmudug kaalintiisa qaato reer Hobyo waxaan ka rabnaa adinka meelo badan baad kaga dhowdihiin howlgallada kagana duwantihiin inaad ka soo baxdaan oo ka soo baxdeen aad dardar gelisaan oo toban jibaataan dadaalkiin aad ku garab istaagaysaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed daraawiishta Galmudug xoogga kacdoonka reer Galmudug inaad garab istaagiina iyo gurmadkiina adinkan u kala harin la garab taagtaan oo la soo baxdaan waxaan meel la joogaba mar kale aan iskugu bishaareynayna ilaahay idankii khawaarijta waqtigoodii waa soo dhamaaday qofkii maanta inuu dagaalkooda ka maqnaada waa qof wax weyn ka maqnaaday guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan reer Galmudug wixii ay galeen wixii ay geysteen inaan ka goyno wey maanta waynaysan baxsan weliba kuwa ku sugan Galmudug waynaysan aysan ka baxsan ay dhadhamiyaan dulmigoodii xumaa diin la-aantoodii
dhibaatada ay geysanayeen dadka muddada dheer ay dhibaatada ku hayeen laga yaabo weli inay qaarkood cabsi ku jirtana cabsida inaan ka bixino oo u tagno oo la dhiirogeliyo oo ayagu ay intay ka og yihiin muddada ay dulminayeen inay maanta la soo baxaan oo looga faaidaysto xoreynta ayaan rabnaa insha allahu tacaala. hobyo lama joogayo laga bilaabo saacaddan inta joogta mas-uuliyiin iyo dadka bulshaweynta kaleba waxaan rabnaa in la dhaqaaqo qof walibana qeybtiisa u qaato. hobyo meel dambe weeye reer hobyo ilbaxnimadii xeebta iyo xadaaraddii waxa la rabaa inaad dagaalka khawaarijta uga faa'idaysataan. mararka qaar waxaa la idinka yihahdaa waa farsamo badan yihin reer xeebeedkii bal farsamadaas shaabka hawshiisaan la gelaysaan maanta hadii laa yidhaha aad iyo aad baa umahadsan tihiin. annaga fadhi iyo joogjoogis iyo hawl noo taalla ma jirto oon ahayn inaan safka wada galno. asalaamu calaykum raxmat ullahi wabarakaatu.